waa idin salaamaya dhammaan saaxiibaday meel walbaad iga daawanaysaan waa hoob abuukar iyo mar kale oo idinla soo dhawaada saaxiibaday i daawanaya meel walbaad joogtaan waa idin xiisay maalmahan ma soo gelin maanta waxaan rabaa inaan sii wado mawduucii ahaa waxyaalaha ama erayada igu soo jiiday masiixa oo aad aan u jeclaa marka aayadan aan idinla qaybsanayo waa aayad aan aad iyo aad u jeclaa oo i qusaysay noloshayda qusaysay sidaa ogtihiin haddaa Soomaali nahay dhibaatooyin badan aan soo marnay nolosheenna waa soo dhibtoonay wadan la-aanaan heshay especially kuwa banaanka aaday waxay garteen qiimaha wadanka leeyahay waxaana ugu wacan dhibaatooyin badan ay mareen marka dadkaasaan ka mid ahaa waxaan ahaa qof hawshaysan waxaan ahaa qof culaabaysan oo nolosha ku dhibtooday marka aayadan marka aan maqlay aad ayaan ugu nastay aayadan waxay leedahay ii kaalaya kulligiin kuwiina hawshaysan oo culaabaysano oo anigu waan idin nasin doonaa marka bini aadanka waa hawshaysan yahay subaxi ilaa habeenkii waa hawshaysan yahay meel walbuu joogo wuu hawshaysan yahay marka rabbiga wuxuu leeyahay ii kaalay kulligiin bini aadan dhanow waa hawshaysan tihiin culaab baa idin saaran oo waxaad rabtaan nolol inaa heshaan oo waad ordaysaan oo waa mashquulsan tihiin oo waxbaa rabtiin inaad gaartiin iyaga ma dhammaanayaan hawshaas laakiin adinkaa dhammaanaya annaga sidaa u ordayno ayaa dunida ka tegaynaa sidaa u raadinayno ama shaqee ama ilmahaaga wax u samee ama qof xanuunsan inuu caafimaad helo u ordaayaa kulli inta ordaysa waxa ay u ordo waa nolol ayay raadinaysaa noloshana run ahaantii masiixay ku jirtaa masiixa wuxuu yidhi anigiyaa nolosha waad raadinaysaa waadna ka dhimanaysaa waa hawshaysannahay waa culaabaysannahay waa dhibaataysannahay marka waxbaan raadinaynaa nasashaan raadinaynaa inaan nasanaan raadinaynaa lacag nasasho inama siin karto markas aan gaarno ama shahaadooyin aan qaadano nasasho inama siin karto ilmo aan dhalno ama badan nasasho inama siin karaan marka waxyaalo badan ayaa nasashona siin karin kan jiran wuxuu u ordayaa inuu caafimaad helo laakiin marka uu caafimaad helo bardu waa ordayaa dadka caafimaadka qaba iyagana way ordayaan kan lacagta qabo wuu ordayaa kan faqiirka ah wuu ordayaa marka bini aadan oo dhanba wuu hawshaysan yahay marka waxaa loo baahan yahay nasashadaas ilaahay ku jirtaa ii kaalaya ayuu yiri masiixa ii kaalaya kuwiina culaabaysan oo hawshaysan waa idin nasin doonaa marka aniga run ahaantii markaa masiixa u imaanaya waa culaabaysnaa waa hawshaysnaa orod ayaan ku jiray marka ugu horeyso horta sida haween Soomaali badan ayaan ahaa oo waxaan ahaa single mom oo caruur wadata midda kale waxaan aan ka daba ordayay inaan wax samaysto inaan wax u yeelo inaan mustaqbal ilmahayga u yeelo inaan nafteyda meeleeyo laakiin kama helin nasasho markaa ereygaan maqlay oo masiixa aan qaatay run ahaantii ereygan aad u ii taabtay oo ah ii kaalaya sidaasaa ugu tegay ila nebi dhahay ii kaalaya ma jiro meelaan ka maqalnay oo kale ma jiro oo dhahayo kaalay haddaad ii imaato aniga anaa nasasho ku siinaya marka masiixa ayaa yiri laakiin aayadda ka dambaysa ayaa aayad cajaa'ib ah aayadda ka dambaysa waxay leedahay harqoodkayga dushiina ku qaata oo markaa masiixa u nimaadno harqoodkiisa
inaan dusheena ku qaadano wax iga bartuu leeyahay marka harqoodkaas muxuu yahay waxa uu asaga baray inaan nolosheena ku dabaqno inaan nolosheena ku noolaano oon ku socono marka wuxuu leeyahay wax iga barta haddaan ka barana maxaa dhacaayo wuxuu leeyahay horta aniga waa qaboobanahay qalbigayguna wuu hooseeya oo naftiina nasashaad u helaysaan haddaan masiixa wax ka barano oo ah waxyaalaha aan ka baranayno qaboobanaantiisa yaa iyo qalbigiisa hooseeya annaga nafteena nasasha u helaynaa marka ogow waxa bini aadanka dhiba yaa oo cariiriya oo nolosha dhibaato u keena waa kibirka sidaa u naqaana ma aha kibirka waa mawduuc weyn waa waxa kaliya oo ilaahay aad uga caroodo wuxuu yiri kan ishooseeya naxariisaan u haayaa kibirka laakiin ilaah uu hor istaaga qofka kibra marka wuxuu leeyahay iga barta waxa aan ka baranayna marka masiixa maxay tahay ishoosaysiintiisa iyo qalbigiisa qabooban qalbigiisa hooseeya ya iyo qaboobanaantiisa wuu qabooban yahay isma luro ya marka run ahaantii ereygan waa erey run ah waa erey jira waa erey aan aniga dhadhamiyey waa erey aan ku noolaaday waa erey aan nasasho ku helay run ahaantii waan dhadhamiyey waa u tagay masiixa laakiin markii aan aad uga bartay waxa ereygan mar dhow wuxuu ahaa marka aan bartay in aan ka barto masiixa ishoosaysiin iyo qaboobanaan marka waxaa idin leeyahay Soomaali haddaan nahay dad badanaa jira oo culaabaysan dad badanaa jira oo dhibaataysan haween ha ahaado ama rag ha ahaado dad la dulmayaan nahay oo nolosha ay dulantay laakiin gacmaha ilaahay way furan yihiin ballanqaadka ilaah wuu joogaa masiixa wuxuu leeyahay kulligiin kuwan culaabaysan ama haddaad tahay gabar iyadoo yar la xoogay ama haddaad tahay nin raga oo la dhibaateeyey ama haddaad tahay qof noloshiisa cariiri galay oo ilmihiisii aanan wax u qaban karin ama haddaad tahay mid ku wareeray oo siduu lacag u aruurinayay oo business ah u dhahayay oo cudur ku dhacay haddaad tahay mid jiran oo ku fadhiya kursi ama baryaya inuu nasasho helo ama caafimaad helo waxaan ogahay kulligiin intaas culaab wadata haddii masiixa u timaado ballanqaadkiisa ayaa ah inuu nasin doono masiixa wuxuu yiri ii imaada anaa idin nasinaya marka maanta intaasaan kusoo ekeynayaa saaxiibaday daawanayo dhan waan idin jeclahay rabbiga ha idin barakeeyo dhadhamiya waxaa qoran ila dhadhamiya ilaahay macaankiisa maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan habeen igu soo galay